Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kulanti wacan oo wanaagsan Soomaaliya meel walba oo dunida daafeeda ka joogtaan. Maanta waxaan halkan idinkugu soo gudbinayaa qiso cajiib ah. Qisadaas oo la magac baxday wiilkii Ilaahay u qoray dhambaalka. Akhristayaal, waxaa jiray qiso dhab ah oo ka dhacday dalka Masar. Waxaa jiray qoys faqiir ah oo wax adduunyo aan haysan, mood iyo nool toona, balse aabbaha reerka iska leh waxa uu nin ahlu cibaado ah. Ninka reerka mas'uulka ah waxa uu wiil uu dhalay ku barbaarin jiray in mar kasta oo la yiraahdo yaad adduunka ugu jeceshahay inuu yiraahdo Allah. Kadibna inankii yaraa waxa uu noqday mid qalbigiisa ay degtay kelmadda jacaylka Allah, iyadoo laga yaabo carruurnimada darteed inaan wax badan ka fahansanayn macnaha badan iyo faa'iidada ku jirta jeclaanshaha Allah. Muddo yar ka bacdi waxaa si xun u xanuunsaday odaygii reerka mas'uulka ah, maadaama ay ahaayeen marka horeba reer faqiir ah oo aan lahayn wax dhaqaale ah. Waxaa dhacday in odaygii uu tahli waayo in xitaa uu waayo wax uu daawo siisto ha yaraato ama ha badnaatee. Kadibna waxa uu noqday nin dhul yaala oo xanuun diishooday. Sida caadadaynoo ah, haddii aynu nahay dadka muslimiinta, waxaa jira inaynu soo booqano dadkeena bukaanjiifka, kadibna markaynu ka ambabaxayno waxaynu qofku xanuunsan yahay ku macsalaameynaa kelmadda ah Allah ha ku caafimaadiyo, taasi oo ah ducada loogu duceynayo in Ilaahay bukaanka caafimaad ugu bedelo. Inankii yaraa ee carruurta ahaa waxa uu mar kasta maqlaa iyadoo qof kasta aabihii soo booqanaya markii uu kasii tagayo uu ku leeyahay Allah ha ku caafimaadiyo. Kadibna inankii yaraa waxa uu maskaxdiisa ku soo dhacday, Allahan ay dadku leeyihiin ha ku caafimaadiyo miyaanu ahayn midkii uu aabihii aad ku jeclaa ee uu adigana ku odhan jiray marka lagu yiraahdo yaad jeceshahay waxaad tidhaah Allah. Inankii yaraa waxa uu go'aansaday in uu Allah uu warqad u qoro kagana dalbanayo in aabihii uu caafimaadiyo. Inankii yaraa waxa uu tegay hooyadii waxaana uu sheegay in uu doonayo inuu Ilaahay warqad u qoro uu kaga codsanayo in uu aabihii uu caafimaadiyo, ileen waa meel Ilaahay wax ka waday. Hooyadiina way ogolaatay. Inankii yaraa waxa uu soo qaatay qalin iyo warqad, kadibna qoraal la fahmi karo in ay carruuri soo qortay oo isku qalqalooca waxa uu ku qoray warqadii isagoo leh, Allihii aan jeclaayo waxaan kaa codsanayaa in aad aabihii caafimaad siiso. Kadibna waxa uu hooyadii ka codsaday in ay geyso una raacdo meesha boostada ee warqadaha lagu rido. Iyaduna waa hooyo kheyr leh waa ay ka aqbashay. Warqadiina waxaa lagu riday sanduuq boostada, taasi oo ah warqad ka timi wiil yar kuna socota Ilaahay. Nasiib wanaag, warqadii waxa uu Ilaahay gacan geliyay nimankii boostada, gaar ahaan dad xigmad iyo caqli u saaxiiba. Kadibna waxa ay arkeen in warqadan ay ku socoto Ilaahay. Dhammaan shaqaalihii waxay dareemeen in warqadani ay tahay mid ka awoodaan shaqada ay hayaan, waayo waxa ay arki jireen shaqaduna ay tahay warqad qof soo qoray oo qof kale ku socota, balse warqad si toos Allah ugu socota may arkin. Warqadii waxaa la gaarsiiyey nimankii madaxda ee dowladda u talinayay, iyadoo la ogeysiyey in boostada laga helay warqad ku socota Ilaahay. Maalmo ka bacdi, madaxdii dalka warqadii shir la gashay. Haddaba si loo arko warqadda gudaheeda waxa ku qoran la furay warqadii. Kadibna waxaa la ogaaday in warqadan uu soo qoray ilmo yar oo farbadal ah, kaasi oo Allah ka dalbanaya inuu aabihii caafimaadiyo. Intaanay dowladda qoraalkii warqadaanay go'aan ka gaarin warqadii waxaa lagu qoray jaraa'idka dalka ka soo baxa, taasi oo leeyahay waxaa boostada laga helay warqad uu soo qoray ilmo yar kuna socota Ilaahay. Fajac iyo makaag dadkii ka wada qaadeen warqadii. Kadibna waxaa ka mid ah dadkii joornaalka akhristay nin ka mid ah dhakhaatiirta ugu waaweyn dalka Masar, kaasi oo markii uu fariintii akhriyay si degdeg ah u raadiyay reerka iyo meesha uu degan yahay. Markii uu ninkii dhakhtarka ah uu guriga qoyska u yimi waxa uu yidhi, meeyey wiilkii yaraa warqadda Allah u soo qoray? Kadibna waxaa lagu yidhi, waa kan. Waxaan ugu jawaabay, maadaama aad Allah warqad u qortay, Allahna aniga ayuu ii soo diray. Isla waqtigiiba waxaa guriga ka qaaday odaygii xanuunsanaa, waxa uuna geeyey dhakhtarkiisii. Reerkii iyo inankii yaraana waxa uu u ballan qaaday in uu aabbahood halkan ku daaweynayo, Allahna uu caafimaad ugu bari doono, wax lacagna aanu ka rabin. Muddo yar ka bacdi waxaa guriga odayga xanuunsanaya waxaa ku soo qulqulay dowladdii oo dhan. Waxaana loo sheegay in uu qaaday ninkii dhakhtarka. Dowladdana wax kasta oo ay ku tiri karayso waa ay ku kaalmaystay. Akhristayaal, reerkii waxa uu ku dambeeyay odaygii oo Ilaahay caafimaadkiisa u soo celiyay. Reerkii oo noqday mid hodan ah oo Ilaahay risqi waasic u furay, taasi oo ay ku heleen kalsoonidii iyo xuskii Ilaahay ee aan marnaba carabkooda ka goyn. Marka aad qisadan u fiirsato,
waxaad dareemaysaa ama ka soo baxaysa in wiilkan yari uu ahaa mid carruur ah isla markaana garanayn Allah waxa uu gudo iyo waxa uu galo. balse xaqiiqada meesha ka jirta waxa ay tahay caqiidada iyo garashada uu Allah u lahaa odayga in ay tahay mid Ilaahay ku galaday, sababna uga dhigay warqadda uu inankan yari uu Ilaahay u diray. Daawadayaal, waxaa fiican in aynu carruurteena ku barbaarino jacaylka iyo barashada Ilaahay si aynu if iyo aakhiraba ugu liibaano. Fadlan haddaad daawatay muuqaalkan, sii sheer garay channelkeena, subscribe, like, share and comment. Thank you so much.